وحناهاي وهديك دوسيدا وحناهاي وانا معلمك وحناهاي وهديك دوسيدا وحناهاي وانا معلمك واجي بريبا أو بحلقة ورابشو واجي بريبا أو بحلقة ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرنامج كيني كبره هودا aad kala socon jirteen ama ka daawan jirteen TV qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo idaacadda radio Hargeysa arday oo macallinkiini Soomaaliga Jaamac Ali Xuseen waxaan hore u soo dhiganay ama aynu ku soo jirnay oo aynu bilownay xiisadii ka horeysay cutubka 6 ee fasalka 6 maadada Soomaaliga casharkiisa koowaad baynu bilownay casharkii baanaynu ku sii guda jirnaa xiisadii hore casharkeena waxaanu ka bilownay page-ka 140 xiisadan waxaanu ku joojinay page-ka 147 waxaanu ka bilaabi doonaa insha Allah page-ka 147 bismillaahir rahmaanir rahiim hadii casharkeena hore aynu soo yara dul marno waxaanu casharkeena ka hadlayay naxwaha ama dhismaha afka sidaynu ogsoonahay dhismaha afku waa qaybta ugu muhiimsan ee afka afna hadii aanu lahayn naxwe af ma noqon karaba qodobada uu afku noqdo waxa koow ka ah naxwaha oo ah dhismihii afka luqad walibana waxay leedahay naxwe luqadeena Soomaaliguna sidoo kale waxay leedahay naxwe cutubkan fasalkii shanaad markii aad ku jirteen waxaad ku soo barateen binary qaybaha hadalka ama afka qalaad waxa lagu yiraahdo 8 parts of speech cutubkan waxaanu ku dhigan doonaa astaamaha ama sumadaha qoraalka aynu ku baran doonaa casharkiisa koobaad dadku marka ay hadlayaan ama ay hadal jeedinayaan hadalkooda waa isku habeeyaan oo ay agaasimaan si uu hadalkoodu u noqdo mid qurux badan oo soo jiita ummadda oo dhan oo qofkii hadalkiisa loo bogo sidaas la mid ah qofka qoraal sameynaya isaguna qoraalkiisa waxa uu raacaa xeer nidaamiye ama xeer qoraal hab loo raaco qoraalka oo sumadaha qoraalku ay kamid yihiin hababka markaas qoraalka loo raaco waxa koow ka ah baynu sadarka cusub sidaynu soo sheegnayba waxaanu marka sadar cusub la bilaabay waxa lagu bilaabaa xarafkiisa kelmadiisa koobaad ama kelmadda ugu horeysa weedhaas waxa lagu bilaabaa xarafkeeda koobaad xaraf weyn baa laga dhigaa ama capital letter sidoo kale waxaanu sheegnay in magacyada gaarka ah iyaga laftooda xaraf weyn lagu bilaabo laakiin magacyada guud laguma bilaabo xaraf weyn waxaanu sidoo kale ka soo hadalnay waxyaabaha xarafka weyn lagu bilaabo waxaanu niri waxyaabaha ereyada la soo gaabsado tusaale ahaan i wa ma oo kale oo loo soo gaabsaday iyo wixii la mid ah waxa lagu qorayaa dhamaantood xarfo waaweyn sidoo kale waxaanu soo sheegnay oo aynu casharkeena hore ku xusnay hamsaha ama hakadka waxa la yiraahdo hakaduleedka waxa la yiraahdo hakaduleedkaasi waxa uu bedelaabay macnihii hore ee ereyga ayuu bedelaa macno kale oo naxwo ahaan ka duwan macnihii hore sidoo kale jiitinta aynu soo dhiganay oo aynu casharkankii ka horeeyay ku soo qaadanay jiitinta gaabani waxa isku xidhaabeen magacyo kala duwan oo ay ka dhigtaa hal magac tusaale ahaan oo kale magaalo waa magac madaxduna waa magac labadaas erey marka la isku xidho waxa isku noqdaan magaalo madaxda oo macno kale gaar ah sameynaya waxaanu sidoo kale ka soo hadalnay joogsiga
oo caddaynaya inay weedhaasi dhammaad tahay oo aanay ku dhammaan su-aaliyo yaab midna sidoo kale waxyaabaha aynu soo dhigannay waxaa ka mid ahayd astaanta yaabka oo loo isticmaali karo erey iyo weedh labadaba waxyaabihii kale aynu soo dhigannay waxaa ka mid ahaa 4 astaamood ama 4 sumadood oo hakad dhibic hakad laba shume iyo jiitimaha isdaba yaal ama xariiqaha isdaba yaal jiitimaha isdaba yaal oo iyaguna ah dhaashtii haddii aynu intaa kaga soo gudubno ardayay casharkeennii hore halkii uu inoo marayey waxay inoogu joogtay kolomada ayaynu ku jirnay oo kolomada waxaynu nidhi kolomadu waxa la isticmaalaa baynu nidhi marka hadal qof laga soo xiganayo ama la sheegayo hadal uu qof kale yidhi tusaale ahaan waxaynu nidhi wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi eegada ayaa yidhi arday oo la soco halkaas ayaa yidhi marka lagu yidhi waa inaad kolom furataa oo kolomadii furataa horumarka waxbarashadu waa himilada koowaad ee aan u taagannahay kolomkii markaa waad soo xidhaysaa hadalkii uu wasiirku yidhi ayaa kolomadii labada koone laga mariyey tusaalaha labaad isaga oo ay kuray geed fuushan ayaa suldaan diiriye yidhi isagoo ah kuray geed fuushan ayaa suldaan diiriye yidhi wixii uu yidhi baa markaa kolomadii hareeraha laga marinaya waayeel ha guranine wax aqoonah gura tusaalaha xiga maxamuud gahayr waxa laga qoray wixii laga qoray markaas ayaa kolomada la dhex gelinaya marka aan lugaynayo waxa qaldan kuwa gawaadhida wada marka aan gaadhiga wadana waxa qaldan dadka laamida maraya hadalkaa uu yidhi waa markaa kolomadii ardayda laga marinaya hareeraha tusaalaha xiga gafka la ii tirinaayo inaan dooc iyo dareen ka qabin eegada gafka la ii tirinaayo inaan dooc iyo dareen ka qabin ayaan ku dhaaranaya hadalkaa markaa uu yidhi ayaa labada koone laga mariyey kolomadii qaansooyinka sumadda qaansooyinka ama astaantan qaansooyinku waxay qeexdaa hadal kaabaya ama macnaynaya hadal kale sumaddan qaansooyinku waxay qeexdaa baa la yidhi hadal kaabaya ama macnaynaya hadal kaabaya hadal kale kaabaya ama macnaynaya tusaale magaalada saylac markaa qaansooyinkiiba waxaa la gelinayaa xarunta gobolka saylac magaalada saylac markaa wuxuu hadalkani kaabayaa inay magaalada saylac tahay magaalo madaxda gobolka salal xarunta gobolka salal marka lagu yidhi xarunta gobolka salal waa magaalada saylac waxay leedahay sooyaal mugle maalinta madax banaanida qaansooyinkiiba waxaa la gelinayaa 26 juun 1960 26 juun 1960 markaa 26 juun 1960 waxay kaabayaan ama macnaynayaan maalintan madax banaanida waxaynu gobonnimada ka qaadanay gumaystihii ingiriiska markaa haddii aan halkaa mar labaad kuugu celiyo ardayow astaantani waxay qeexdaa baa lagu yidhi hadal ayay kaabtaa ama macnaysaa tusaale ahaan magaalada saylac baa waxaa lagu sii kaabay xarunta gobolka sal ayaa la geliyey markaa qaansooyinkii sidoo kale maalinta madax banaanida maalintii madax banaanida markaa lagu sii macneeyey waxaa lagu yidhi 26 juun 1960 tusaalaha xiga buugga samatalis baa markaa weedh kale oo sii macnaynaysa diiwaanka taariikhda xaaji cabdikariim xuseen yuusuf buugga samatalis diiwaanka taariikhda xaaji cabdikariim xuseen yuusuf cabdiwaraabe ayuu buuggaasi ka hadlayaa taariikhdiisii baa lagu leeyahy waxaana qoray siciid maxamuud gahayr abwaanka la idhaho arday mar labaad waxaad nagala socotaan barnaamijkeennii ka bara hawada ee aad kala socoteen ama ka daawan jirteen kana dhagaysan jirteen tv-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo idaacadda radio hargeysa bismi illahi raxmaan raxiim casharkeennii koobaad ayaa halkaas inoogu gabagaboobay waxaynu ku xigsiin doonaa casharkeenna labaad oo ah magacyada ama magaca iyo qaybihiisa magac waa erey kaasoo loo bixiyo qof shay xayawaan fikrad iyo wixii la mid ah fasalkii shanaad waxaa ku soo barateen ama aynu ku soo barannay ardayay qeexidda magaca
magacu wuxuu yahay baynu fasalkii shanaad ku soo barannay iyo qeexidiisa fasalkan lixaadna waxaynu ku baran doonaa arday magaca iyo qaybihiisa magaca waxaa loo qaybiyaa dhowr qaybood oo kala ah magaca waxaa loo qaybiyaa dhowr qaybood oo kala ah magac gaar magac guud magac alaabeed iyo qaybo kaloo badan marka labadaas qaybood baa fasalkiina lixaad kaga jira magac gaar iyo magac guud ayaynu ku dhigan doonaa haddii idmo magaca gaarka ah haddii aynu ugu horreysiino ama magaca inoogu soo horeeya magaca gaarka ah waxaa loogu yeedhaa wax cayiman sida qof hakad magaalo maalin bil tuulo degmo neef gobol dal iyo wixii la mid a ardayo halkaa haddii aan kugu celiyo magaca gaarka ah waxaa loogu yeedhaa ama loo yaqaanaa wax cayiman sida qof magaalo maalin bil tuulo degmo neef gobol dal iyo wixii la mid a bal eeg tusaalayaashan haddaba siciid waa arday dhigta dugsiga sheekh cali cismaan waar eeg hadda siciid waa magac gaara waa arday dhigta baa lagu yihi dugsiga sheekh cali cismaan dugsiga sheekh cali cismaan ee la sheegana isaguna waa magac gaara laascaanood waa caasimadda gobolka sool laascaanood iyaduna maxay noqonaysaa magac gaara caasimadda gobolka sool soolna iyaduna waa sidoo kale waa magac gaara buurta somalilan ugu dheer waxaa la yidhaahdaa surad buurta somalilan ugu dheer waxaa la yidhaahdaa surad markaa somalilan weedha iyadana waxaa ku jirta oo tusaale inoo ah somalilan oo ah magac gaara iyo surad oo magac gaara sidii aynu casharkii kan ka horreeyey kusoo sheegnay ardayay magacyada gaarka ah waxaa lagu bilaabayaa mar kasta xaraf weyn tusaalaha xiga heesta calanka waxaa sameeyey abwaan xasan sheekh muumin abwaan xasan sheekh muumin markaa waa magac gaara magacyada ilaahay waxaa ka mid ah guulle hakad weyne hakad iyo quwiile magacyada ilaahay waxaa ka mid ah guulle weyne iyo quwiile saddexdaas magacba waa magacyo gaara abwaan hadraawi waxa uu ku dhashay magaalada burco abwaan hadraawi waa magac gaara sidoo kale burcona waa magac gaara labadaas ayaa ku jira weedhanna oo magacyo gaara daraawiishtu waxay dagaal la galeen gumaystihii ingiriiska daraawiishtu waa magac gaara ingiriiskuna waa magac gaara aada ugu fiirsa ardayay ama aada u dhegeyso jaamacadda camuud waa tii u horreysay ee dalka laga furo jaamacadda camuud waa tii u horreysay ee dalka laga furo camuud waa magac gaara magacyada gaarka ah waxaa astaan u ah baynu niri mar walba oo lagu garan karaa magaca gaarka ah waxa uu ku bilaabmaa xaraf weyn webiga afrika ugu dheer waxaa la yidhahdaa niil africa waa magac gaara niilna waa magac gaara gobolka ugu baaxadda weyn dhulkeennu waa sanaag sanaag iyaduna waa magac gaara arday markaa tusaalayaashani waxay naga caawinayaan inaad ka aqoonsato magacyada gaarka ah magacyadii kale marka la dhex geliyo oo astaamaha aad ku garan karta magaca gaarkaana waxaa ka mid a baynu niri magaca gaarkaa mar walba waxaa lagu bilaabaa xaraf weyn haddii aynu eegno ardayay haddaba layliska uu casharkeenna leeyahay waa maxay magac gaari magac gaara waxaynu ku soo xusnay casharkeennanaynu ku soo xusnay magaca gaarkaa waxaynu ku sheegnay magaca gaarkaa waxaa loogu yeedhaa baynu niri wax cayiman sida magaalo maalin bil tuulo degmo gobol dal iyo wixii la mid ah haddii ay markaa su-aashani kaa hor timaado waa maxay magac gaarahay magaca gaarkaa waxaad ku qeexaysaa intaas aynu soo xusnay xaraf noocee ah ayaa magacyada gaarka ahay ku bilaabmaan hadda eeg arday ilaa maanta waa tii aynu ku celcelinaynay sidaad maqlayseenba magaca gaarka ahay xarafku ku bilaabmo
magaca gaarka ah waxa mar walba lagu bilaabo baynu niristay casharkeenan iyo casharkii ka horreeyay baynu ku soo xusnay xaraf weyn baa lagu bilaabaa magaca gaarka ah marka su'aashaasina haddii ay ka hor timaado waxaad kaga jawaabaysaa magaca gaarka ah waxa lagu bilaabaa xaraf weyn magaca gaarka ah ku hor qor magaca gaarka ah kuwa kalena magac kale haddii ay kelmadaha soo socda arday yihiin baa layidhi magac gaar ah ardayda intiina dhageysanaysay inta TV-ga naga daawanaysaaba haddii ay yihiin kelmadaha soo socdaa magacyo gaar ah waxaad ku hor qoran doontaa magac gaar ah haddii ay yihiin kuwo kalena waxaad ku qori doontaa magac kale magaca ugu soo horeeya waa dahabo dahabo arday waxa weeyaan waa magac gaar ah waxaana astaan inoogu filan wuxuu ku bilaabmay xaraf weyn buur arday buur iyaduna sidoo kale waa magac buur waa magac guud iyadoo magac kale raacaysa geesi isaguna wuxuu raacayaa magac guud oo waa magac kale maroodi jeex waa magac gaar ah qaanso waa magac gaar ah wiil waa magac gaar ah naadiya waa magac gaar ah America magac gaar ah Hindiya magac gaar ah haddii aynu arday u gudubno waxaynu iminka soo xusnay oo aynu ka soo hadalnay oo aynu ka soo sheekaynay ama soo dhignay magac gaar ah magacii gaarka ah waxaynu ku sheegnay magaca gaarka ah waxa loogu yeedhaa baynu wax cayiman sida qof magaalo tuulo iyo wixii la mid ah magaca guud ayaynu haddaba iminkana bal sharixi doonaa aad ha loo dhageysta arday magaca guud waa mid ka dhaxeeya wax ka badan hal qof magaca guud waa mid ka dhaxeeya wax ka badan hal qof haddii aynu halkaas eegno farqiga u dhaxeeya magaca gaarka ah iyo magaca guud magaca gaarka ah waxa la yidhi waa wax cayiman baa loogu yeedhaa wax cayiman tusaale sida qof magaalo mii tuulo iyo wax hal qof ka badan looguma yeedhi kara magaca gaarka ah ama hal meel wax ka badan looguma yeedhi kara laakiin magaca guud waxaa loo isticmaalayaa ama uu ka dhaxeeyaa waxyaabo badan tusaale ahaan magaca guud waa mid ka dhaxeeya wax ka badan hal qof baynu nidhi hal meel hal noole iyo wixii la mid ah wixii ka badan waxaa loo isticmaalayaa magac guud tusaale ahaan oo kale haddii aynu iminka tusaale u soo qaadanno xayawaan magac guud haddaynu nidhahaa iminka libaax wuxuu noqonayaa magac gaar laakiin haddaynu nidhaaho libaaxiyo ama wadar raxan libaaxiye ah magac guud bay noqonayaan waa mid aan loogu yeedhin cid gaar ah magaca guud waa mid aan loogu yeedhin cid gaar ah laakiin ay wadaagaan noole ama noole ay jinsi xirfad iyo arrimo kale wadaagaan waa mid aan loogu yeedhin baa lagu yidhi cid gaar ah laakiin ay wadaagaan noole ama noole ay jinsi xirfad iyo arrimo kale wadaagaan magacyada guud waxa ka mid ah dad ayaa magacyada guud ka mid ah oo dad magac gaar ma noqon karaanoo waxay ka dhaxeeysaa ereyga dad wuxuu ka dhaxeeyaa dadka adduun weynaha ku nool oo dhan dhoobo iyaduna waa magac guud libaax waa magac guud boqor waa magac guud xoolo waa magac guud caano magac guud subag magac guud geel magac guud ari magac guud lo magac guud kayn magac guud shabeel magac guud sakaaro magac guud macallin isaguna wuxuu ku jiraa magac guud dhakhtar ganacsade kalkaaliye dhul roob daad hilaac iyo onkad waxaasoo dhammi waxay noqonayaan magacyo guud oo aanay cid gaari lahayn waa kuwan qaar ka mida magacyadii guud oo tusaalayaal ku jira dadka waxaa laga abuuray dhoobo eegada dhoobo maxay tahay waa magac guud dadka waxaa laga abuuray dhoobo libaaxu waa boqorka habar dugaag libaax markaa waa magac guud libaax maaha libaaxa jooga beertayna warcaddo keliye waa libaaxa ku nool adduunka oo dhan xoolaha waxaa laga helaa caano
subag iyo cad caano waa magac guud subag waa magac guud cadna waa magac guud arday haddii aynu isxasuusino magaca gaarka ahi waxa uu ku bilaabmaya xaraf weyn laakiin magaca guud isagu kuma bilaabmo xaraf weyn saad ku arkaysaan ama aad ku dhagaysanaysaanba tusaalayaashan waxa aanu dhaqannaa geel ari iyo lo waxaanu dhaqannaa geel ari iyo lo geel waa magac guud ari waa magac guud lo na waa magac guud iyaduna sidoo kale kaynta waxaa jooga libaax shabeel sakaaro iyo gorayo dhammaan xayawaanaadka kaynta jooga aynu soo xusnay iyaguna waa magac guud waxaan arkay macallin dhakhtar kalkaaliye iyo ganacsade intaas aynu dhammaantoodba iyagana soo xusnay aynu leenahay waanu aragnay iyaguna waxa weeyaan magacyo guud dhulkii waxa maasheeyey roob daad hillaac iyo onkod roobka iyo daadka iyo hillaac iyo onkodku iyaguna sidoo kale waa magacyo guud arday casharkeennii labaad ee maadada soomaaliga ee fasalka 6aad isaguna halkaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa waxaanad nagala socoteen barnaamijkeennii ka bara hawada ee aad ka daawan jirteen kana dhagaysan jirteen tv-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo idaacadda radio hargeysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno